يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد. I have one question. In the Surah Al-Imran, verse 50, it says to follow the teachings of Jesus. Why doesn't anyone do this? walaashay magacaada ma noo sheegi kartaa? Chastity? su'aasha walaashu waxa weeye in quraanku ku sheegay suuratu al-imraan suuradda 3aad aayadda 50aad inay waajib tahay inaan raacno amarada masiix ciise calayhi salaam. waxa kaloo jira aayado kale oo badan kuwaasoo sheegaya inay waajib nagu tahay inaan rumayno ciise masiix. walaashay aan ku cadeeyo islaamku waa diinta kaliya kristaanatiga kama hadlayo ee ka dhigaya rumaynta masiix mid kamida tiirarkiisa. muslimku muslim ma aha ilaa uu ka rumeeyo masiix ciise calayhi salaam. waxaan rumaysanahay inuu yahay mid kamida rusushii ulul azmiga. waxaan rumaysanahay inuu yahay masiix. waxaan rumaysanahay in dhalashadiisu ahayd mid mucjiso ku dhisan ma lahayn aabe balse wuxuu lahaa hooyo. masiixiyiintu xitaa arintaas ma rumaysana hadda. waxaan rumaysanahay kuwa dhintay inuu alla idinkiisa ku nooleen jiray. waxaan rumaysanahay dadka cudurrada indhoolanimada ay ku dhacaan iyo baraskuba idinka alla inuu ku daweyn jiray. muslimiinta iyo kristaanatigu hal meel ay walaal ku socdaan, laakiin midkood baa isweydiin kara waa xagee meesha lagu kala leexanayo. meesha lagu kala leexanayo walaashay waxa weeye kuwa badan oo kristaana waxay leeyihiin masiix ciise calayhi salaam ilaahnimo ayuu sheegtay. wuxuu sheegtay inuu allaha sareeyo yahay. haddaad akhriso baybalka walaashay lagama helayo cibaaro cad baybalka dhammaantii halkaa uu ku leeyahay masiix ciise calayhi salaam nafs ahaantiisa ilaah ayaan ahay caabuda. hadday u suurtagelayso qof kastoo kirishtaana inuu cibaaro cad oo cad iiga helo baybalka taasi oo uu ciise masiix calayhi salaam ku sheegayo inuu yahay ilaah uuna leeyahay caabuda, waxaan diyaar u ahay inaan maanta galo kirishtaanatiga. kama hadlayo si bedel ahaan muslimiinta kale aan ka ahay. xaqiiqatan haddaad akhriso baybalka waxaa lagu sheegay Yuuxana jabtarka 14aad faqradiisa 28aad ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay ilaahayga aniga waa iga weyn yahay. Yuuxana jabtarka 10aad faqrada 29aad rabbigaygu dhammaan waa uu ka weyn yahay. Matayos jabtarka 12aad faqrada 28aad anigu ruuxda alle ayaan shayaadiinta ku saaraya. Gospel of Luke jabtarka 11aad faqrada 20aad shayaadiinta farta alle ayaan ku saarayay anigu. Yuuxana jabtarka 5aad faqradiisa 30aad anigu nafsad ahaanteyda inaan wax ka sameeyo ma awoodo. sida aan maqlay ayaan ka diindhiganayaa. diinteedu waa caadil maxaa yeelay ma dalbanayo doonisteeda, waxaan dalbanayaa doonista Allah ee soo diray. qof kastoo dhahaya anigu ma raacayo doonisteeda waxaan raacayaa doonista alle waa muslim. nabi ciise calayhi salaam muslim ayuu ahaa, weligiina ilaahnimo ma sheegan. waxaa lagu sheegay camaladii rasuulada ama sifrul a'maal jabtarka 2 cadadka 22 raggiina reer banu israa'iilow maqla oraahyadan. yasuucu naasri waa qof idinkaga cadeeyay xagga alle cajaa'ib iyo calaamooyin alle uu gacantiisa ku sameeyay ee dhaxdiina ah sida aad ogtihiin baadinkuba. yasuucu naasri waa qof xagga alle inkaga cadeeyay aayado cadcad cajaa'ib iyo awoodo ilaahay gacantiisa ku sameeyay oo dhaxdiina ah. sidaa darteed anagu waxaan rumaysanahay ciise calayhi salaam inuu ahaa mid kamid ah rususha ulul azmiga, laakiinse ilaah ma ahayn. waa taas halkaas ku khilaafsanahay, gaar ahaan waxa ku saabsan tacaaliimtiisa. su'aashaada ku saabsan quraanku inuu noo sheegayo inay waajib nagu tahay raacitaanka masiix ciise calayhi salaam tacaaliimtiisa. markii uu yimid ciise calayhi salaam caalamkan yahuudda oo kaliya ayaa loo diray, reer banu israa'iil oo kaliya. quraanku wuxuu si cad ugu sheegayaa suuratu safa suuradda 61aad aayadda 6aad markii ciise ibn maryam uu ku yiri reer banu israa'iilow waxaan ahay rasuulkii la idin soo diray. sidoo kale suurata al-imraan suuradda 3aad aayadda 49aad rasuul loo diray reer bani israa'iil. sidoo kale waxaa lagu sheegay baybalka Matayos chapterka 10aad faqrada 5 ilaa 6 ciise calayhi salaam waxa uu leeyahay wadooyinka ummadahaas raacina. waa kuwa ummadahaasi yahuud ma aha, hindoos, muslimiin. wadooyinka ummadahaas raacina magaalada saamiriyiintana ha gelina balse aada axraa idaha guryaha reer banu israa'iil ee lumay. isla risaaladaas waxaa lagu sheegay Matayos chapterka 15aad cad faqradiisa 24aad waa uu jawaabay wuxuu ku yiri la iima dirin ilaa
idaha reer banu Israa'iil ee dhumay haddaba Ciise calayhi salaam waxa loo diray reer banu Israa'iil oo kaliya risaaladiisuna waxay waajib ahayd inay xilli kooban ku koobnaato waa sidaas waxay sheegayaan Bible-ka iyo Quraankuba iyadoo jirta arintaas walaashayda haddaad akhriso Bible-ka oo si wanaagsan u dhuuxdo waxa uu Ciise calayhi salaam leeyahay Gospel of Luke chapter-kiisa 2 faqrada 21 Ciise calayhi salaam waxa la guday maalintii 8aad annaga muslimiin ayaan nahay waana isgudnaa laakiin sabadana Kirishtaanatigu isma gudaan haddii aad leedahay raacitaanka tacaaliimta Ciise calayhi salaam waxay ka dhigaysaa Kirishtaan iyo qof Masiixi ah anigu haddaba waxaan jeclahay inaan dhaho aniga ayaa Masiix ka raacitaan badan Kirishtaanka kale nafsad ahaantooda waxaa lagu sheegay Bible-ka buugga Efesos chapter-ka 5 cadadkiisa 18aad ha caabina qamrada sidoo kale buugga mahmaahyada chapter-ka 20aad faqradiisa 1 qamradu waa mid lagu jeesjeeso annaga muslimiin ayaan nahay qamrada ma cabno quraanku wuxuu sheegayaa suuratul maa'ida suurada 5 aayada 9 qamradu waa xaraan sida darteed uma dhawaanayno kulligaanba ma u dhawaanayno mujtamaca muslimka waa mujtamaca ugu weyn ee qamra ka fogaanshada ugu badan caalamka sida darteed marka la waafajiyo Bible-ka waxa waajib inaan la cabin qamrada meelo badan oo kamid ah Bible-ka waxa lagu sheegay inay waajib tahay inaan la cabin qamrada سفر اللاويين chapter-ka 11aad faqrada 7 ilaa 8 سفر التثنية 4 faqrada 8aad أشعياء 65 2 ilaa 5 waxaan ka yaran 5 mar waxa lagu sheegay in xaraan tahay hilibka qanziirka ama doofaarka muslimiin ayaan nahay annagu ma cuno laakiin Kirishtaanka badankoodu waa ay cunaan sida darteed haddii aad tahay qof Kirishtaan ah oo raacsan Masiixiisa calayhi salaam tacaaliimtiisii annaga muslimiin ayaan nahay annaga ayaa ka raacitaan badan Ciise calayhi salaam Kirishtaanatiga daliilo badan ayaan ku sii karaa walaashay markii la weydiiyay Ciise calayhi salaam waa maxay waxa ugu muhiimsan tacaaliimta Injiil Marqas chapter-ka 12aad faqradiisa 29aad waa ikhtibaas luqadda cibriga macnihiisu waxa weeye Israa'iilay maqla rabbigu waa hal ilaah oo kaliya anaga muslimiin aan nahay ma rumaysanin ilaa hal ilaah oo kaliya mooyee laakiin se badana Kirishtaanatigu waxay rumaysan saddex xaalada ama saddex ilaah abka ama rabbiga weyn wiil iyo ruuxul qudus haddaba haddaad leedahay Kirishtaanatigu macnaheedu waa raacida tacaaliimta Ciise calayhi salaam annaga muslimiina ayaa ka masiixisan oo ka raacitaan badan tacaaliimta Masiix Kirishtaanatiga nafsad ahaantooda waxa ku suurtagal inaad u laabato canjalada isku ekaanshaha ka dhaxeeya islaamka iyo Kirishtaanatiga taasoo ku siin doonta tafaasiil badan oo ku saabsan in annagu ka raacitaan badan nahay Kirishtaanka Nabi Ciise calayhi salaam waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري